وراني وان وريريبا أنا بدي حيرة وي وريرة ده كذي وي وريرة تعال الإذان دورنا مقرنين ورمنا نسر سهل بعض دورنا مسف هذا ما قدي بعض دورنا ورجع دورنا وي هلا وان وريرني وريا dhageyso war ha iswaalin war adigu kaliya waxaad ka fikirtaa jeebkaaga cid buuxin karta oo kaliya bas cid kale ka fikirin jooji waxaad ka fikirayso waranta waxaad ka fikirtiin oo kaliya jeebadiina balse kama fikiraysaan mustaqbalka dalkiina iyo dadkiina iyo caruurtiinaba balse kaliya waxaad ka fikiraysaan waajibadiina aniga waxaan idin sheegay haddii rabtaan qof doorataan nasri sahal oo kaliya hala doorto aniga midaas ayaan kula talinayaa maxaa tiri waxaa ku nasri sahal hala doorto taas ay danta dalka iyo dadkuba ku jirtaa wariya dhageyso wariya maxaad ku keentay wariya nasri sahal hala doorto waranaga soo moogid fursad daro kale inay taamidan in badan sugeynay wariya soo moogid wariya midaas waranaga maalinkan sugeynay maalinkan oo kale teen noo baahdaan wariya maanta jabadaha ayaynu ka buuxsanaynaa wariya qofkii wax ka helmay qof kale anagu dooran karno wariya halka waxaan u fadhinaa waa maalmahaas oo kale somada garan wariya yarkaaga waxa ku sheegay adiga oo dalka iyo dadka adigu ka fikir ciyaalka aad sheegaysana nin baa dhalay ninkaasaan u shaqaysanay nin walba ciyaalkiisa hadduu ku filan waayo isaga u taala waranta ciyaalka nin ayaa dhalay sidaadoo kale laakiin waa nin yaran waxba haysanin wuxuuna u baahan yahay qof wax u qabtaa oo gargaar siiyaba u baahan yahay adigu laakiin waxaad ka fikiraysaa calooshaada oo keliyaata warsooma ogid nasri sahal inay tahay qof adigoon dooraynin hadda ka hor ku jiraysa baarlamaanka misana adigoon dooraynin ciyaalkaaga wax u qabanaysay amaba se u hadlaysay miyaad ilowsan tahay midaas nasri sahal waxa weeye gabadha keliyaata ee ugu cadcad baarlamaanka Kenya Soomaalida ku jirta waana gabadha kaliyaata ee ka fikiraysa gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada ay mar walba la soo gudboonaata taas oo ah gudniinka fircooniga ah nasri sahal waa gabadha marnaba aan ka seexanin waxa qabashada dadkeeda iyo dalkeedaba intaba mar walbana waxa ku dadaashaa sida wax ku qaban lahayd dhalinyarada hadda soo kacaya hadday noqoto kuwa waxbarashada heerka sare ka gaadhay iyo hadday noqoto kuwa hadda waxbarashada bilaabayaba oo goormay waxaasoo dhan u qabatay kulli idinku ma ogidiin waayo waqtina waad barjeenaysaan waqtina waad shaqaynaysaan waaba intaasoo keliyaata maantana lacag ayaad ku doonaysaan maraan anigu magaalada soo maray goobo badan baan soo maray meel walba waxaan ku arkay sawirada nasri sahal oo la sudhayo bisana loo ducaynayo taasina waxay ku cadeynaysaa dadweynuhu inay aad u jecel yihiin nasri sahal waxa qabadkeedii waxaan tagay goobaha cibaadada waxaan tagay goobaha jeelasha waxaan tagay dhakhtarada dhammaan intaasoo dhan nasri sahal baa looga ducaynayaa nin walbana wuxuu leeyahay ilaahay ha siiyo cimri dherer iyo caafimaad nasri sahal allaha noo daayo yar iyo waaweyn baa u wada ducaynaya war ma ogsoon tahay nasri sahal haddii inay tahay gabadha keliyaad ee mar walba ku dadaasha heerka waxbarashada caruurteena inagoon ogeyn oo goormay waxaasoo war i dhegeyso wallaahi way dadaashay nasri sahal waa gabadha keliyaata ee u damqaataa gabdhaheena iyo caruurteena mana aha nasri sahal gabar qabiil waa jeer county oo dhan baa laga soo doortay dhammaantoodna waa u sinaayeen waxayna ka fikiraysay say heer u gaarsiin lahayd nasri sahal haddii aad dooran weydaan waxaan idin sheegayaa ciyaalkiina kuwa jaamacadaha soo dhameeyay inay shahaada gidaarada la fadhiyi doonaan kuwa hadda raba inay wax bartaana inay waxbarasho la'aan ama waxbarasho xumi ay ku dhici doonto kuwooda hadda waxbarashada ku jirana aysan wax ay yeelan doonin aniga midaas ayaan idin sheegayaa imika ayaa dantu idinku jirtaa inaad ka fikirtaan jeebkiina ama base dalkiina iyo dadkiina iyo awlaadiina inaad ka fikirtaan waxaan kula talinayaa inaad si buuxda wada jira u doorataan nasri sahal taas ay